بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد walaalyaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aan isku xusuusinaynay sidaan uga faa'iidaysan lahayn bishan barakeysan ee ramadaan markaa hadda aan dhex uga jirno walaalayaal darsigeennan maanta wuxuu ku saabsan yahay qeyb ka mid a fiqhu siyaam waxyaabaha dadka muslimiinta ee soomaya laga rabo inay yani ka ogaadaan ama ay ka bartaan yani soomka oo axkaamtiisii ah ayuu ka mid yahay marka qeybta aan maanta qaadanayn waxa weeye mufatiraat siyaam soomka sidaan soo tilmaanay waa huwa alimsaaku can almufatiraat waxa dadka afuriya in aan laga afuro oo laga afqabsado min tuluuci alfajri waaga markuu baryo ilaa ghuruubi shams sidaasoo soomka macnihiisu ahaa daacatan lilahi subxana wa tacaala iyadoo ilaahay lagu ateecayo marka soomkii waxa dadka afurinayay dadku inay ogaadaan lagama maarmaan wey ilaa 7 shay ayuu sheekh maxamed saalih ibn cuthaymiin kitaabkiisa majaalis shahri ramadaan uu ku sheegay 7 baa qeyb ka mid ah ayaan ku sheegaynaa xalqadan kooban tan ugu horeysa waxa weeyaan ma aragtay aljimaac waa galmada hadday galmo dhacdo maalin ramadaan oo labadii qof ee isqabay ay isu galmoodaan iyagoo ikhtiyaarkoodii yani isugu galmooday oo uusan jirin yani wax matal awoodooda ka baxsan ama khasaba oo labadoodii mid walbaba yani ikhtiyaarkoodii isku ogolaaday galma hadday dhacdo maalin ramadaana waxa weeyaan awalan soonkii ay soomanaayeen halkaas ayuu ku baaba'ay soonkoodii waa buray tan labaad dembi bay ku dhaceenoo waa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala uga toobad keenaan khaladkaasi weyn ee ay ku dhaceen maalin soona oo ramadaana inay isu galmoodeen galmaduna waa in labadii xubin ee taranka ay ma aragtay yani isdhex galaan ayaa loo jeedaa ma aha in lastataabto iyo ma aha marka hadday taa dhacdo marka waa inay ka toobad keenaan soonkiina waa inuu ka buray inay ogaadaan tan labaad waa inay imsaak sameeyaanoo ay maalinta inta ka dhimanna ay afka haystaan maalinta inta ka dhimanna ay afka haystaan oo ma aragtay ay maogtahay inta ka dhiman maalintana aynan afurin wey oo yani ilaa iyo qoraxda ka dhacdo sidii dadka sooman oo kale ay cuntada uga af haystaan tan saddexaad tan afraad waxaa waajib ku ah kafaara mughallada ganaax weyn oo ayaga la dul saaray oo ah yani falkaasi ay ku dhaceen in ay muxuu ahaa soomaan qofkaasi ku dhacay ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdo yani ku dhacay yani falkaasi galmada maalin ramadaan 2 bilood oo xiriira oo uusan maalin u dhaxaynin 2 bilood oo xiriira uusan maalin u dhaxaynin yani ilaa licudrin sharci inuu jiro mooyaane mathalan haddii haweentii caado heshi iyo wixii lamida waa gaar laakiin 2 bilood oo xiriira waa inay ahaadaan haddii uu iska furo maalin oo yiraahda naso haddana waa inuu soo bilaabaa maxaa yeelay 2 bilood waxaa la rabaa inay xiriiraan ganaaxaasi culayska badan ayaa korkoodii ah haddii ay awoodi waayaan maya marka hore waxaa ka horeeyey cidqu raqaba yani adoon inay xoreeyaan yani adoon qof adoona inay xoreeyaan oo taas maanta suuragal ma aha yani waayadii hore yani way dhici jirtay laakiin hadda cid adoon oo la haysto oo la xoreeyay ma jirto marka waxay noqonaysaa tallaabada labaad 2 bilo oo xiriira inay soomaan oo maalin uusan u dhaxaynin xiriirkoodu hadday kari waayaan 60 miskiin inay quudiyaan 60 miskiin inay quudiyaan ayaa ma aragtay ganaaxoodii uu yahay marka waa in la ogaadaa arrinkaas inuu arrin khatara uu yahay yacni soonka jabidiisa ka sokow waxaa la socda ganaax weyn iyo dembigaa weliba weyn ee la galay in laga toobad keeno in loo baahan yahay marka arrinka waa in sidaa loo ogaadaa mufatirka labaad ama midka labaad ee soonka uu ku buro waxa weeye
إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك. يعني قفك إنه مني إسكا كينو، مني ده معناه بيها شهوة إنه إسكا كينو، إسكا هاي إسكا كينو سيدو دون هاي إسكا كينو، أما قعان هاي إسكا كينو، أما دونكشو أو حاسكس أو دونكذا، أما تابشو أو تابتي وحي لمده بيها إسكا كيني سببته النقضي وحي كيني سا صونكي إنه بري وصونكي وكجبي قال هذا الواجب وكيهاي دنبغا وقالين إنه كتوبت كينا لقربه inuu ka toobad keeno dembigaana laga rabo inuu soo qalleeyana wey maalintaas imsaagiina waa inuu sameeyayo uusan afurin wey. marka labadaas qaybood ayaan xalqadan kusoo koobaynaa. qaybta koowaad waxaan nidhi galmada, qaybta labaadna waxaan nidhi inzaalulmani, mani inuu qofka isku keeno ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo, waxa weeyaan waa waxa uu soonka uu ku burayo. ilaa haddii qofka isagoo hurda ay mani ka timaado biduuni ikhtiyaarihi isagoon yani waxuu isaga sameeyey aynan ahayn, taasu kuma jirto hadde, markaasu waxa weeyaan soonkii ka jabi maayo. marka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xalqadan. hada wabillahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.